بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan u sharaxanahay golaha deegaanka magaalada Hargeysa oo run ahaantii magaalada xuduntayda ku aasan tahay magaalo aan jecelahay magaalo horumarkeeda iyo wanaaggeeda iyo aan aad ugu hanweynahay. magaaladu waxay magaalo ku noqotaa markay leedahay jaangooyin siman oo casri ah oo la jaan qaada adduunka. waxaa ugu horeeya waa inay kala qaybsanaataa oo meeshii loogu talagalay shopping centerkeedii lahaataa, waa inay lahaataa residential areaheedii, waa inay lahaataa industrial area, waa inay lahaataa meelaha greenka ah ee lagu nasto, waa inay qaabka jaangooyinteedu ahaataa. magaaladeenu maanta uma jaangooysna si casriya. waxaad aragtaan wixii looga baahnaa magaalo oo dhan guud ahaan ma laha, oo wixii weliba bayska ahaa ee ahaa inay magaalo yeelato iska daa caasimade. waxaa ka mid ah inay waddooyin jaangooysan lahaato oo nidaamsan, oo waddooyinkaasu meeshay baabuurtu marayeen ee carriage waygii la yeelato, kerbkii kala qaybinaya carriage wayga iyo pavementka ama meeshay dadku marayaan yeelato, geedihii qurxinayay jidka ay yeelato, meelihii lagu nasanayay la fadhiisanayay loo sameeyo. iyada waddada laamiga iyo pavementka iyo guriga aanu u dhaxayn waxba inay yeelatay tahay. waxay tahay inay yeelato waddooyinkeenu inay habeenkii yeeshaan light. haddaad Hargeysa dusha istaagto oo aad u baxdo xagga masallaha, waxaad arkaysaa inaad moodo in la soo daadiyey quraarado dhalaalaya dhulka sidaa loogu soo daadiyey. ma garanaysid meesheebaa waddo ah, meesheebaa waddo weyna, meesheebaa waddo yara, meesheebaa maxay meel la mara ah. waxaad arkaysaa laydharkiioo firirsan. markaa inay waddooyinkeennii way madow yihiin ay leydh yeeshaan. Hargeysa inay traffic light yeelato, oo waxaad arkaysaa askarteennii had iyo habeen inay taagan yihiin, cadceeddii taagan yihiin, roobkii taagan yihiin, dabayshii taagan yihiin, ay ku dhinteen iyadoo la heli karayay in traffic light loo sameeyo. la dhimo traffic nimanka traffic ah aynu dhinno oo mid istaago oo kaasuna eego uun sida traffic lightka loo adeecayo ama loola soconayo ama aan loo dhaafayn. waxay ahayd inay yeelato biyo, waxay ahayd inay iskuulladeedu habaysnaadaan, jaamacadeedu habaysnaadaan, meelaha jaamacadaha loogu talagalay ay ka baxsanaadaan magaalada, oo environmentka magaalada maahe meel ka baxsan ay yeelato. waxay ahayd inay meelo green area ama green space yeelato oo habeenkii ama galabtii ama subaxdii loo dalxiis tago. meesha laga yidhaha jardiinooyinka oo kale ma laha, oo waxyaabaha caasimadu leeyihin. waxaa ahayd inay meelo biyo shuba yeelato, meelo dhaaman baynu leenahay, dhaamamkeennii lama isticmaalo, waa meelaha loo dalxiis tegi lahaa oo kale. caasimaddu waxay caasimad ku noqotaa markay jaangooysan tahay, shopping centerkeedu habaysan yahay, meeshuu baabuurku marayay leedahay, meeshii laga dabdaminayay hadduu dabqabsado leedahay. waxaad aragteen laba suuqoo waaweyn baynu leenahay, waa waaheen iyo idaacadda. haddaad dhex gasho qofka ayaa dirqi ku maraya. waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin jaangooyin, waxay u baahan yihiin caasimad waxay yeelan lahayd. haddii aanu ku guulaysano oo aanu tagno, waa inaanu casriyeynaa, sana loo sameeyaa, la dhireeyaa Hargeysa. Hargeysa waa inay dhir heshaa, waa in la biyeeyaa, waa in dhirtaa laga shaqeeyaa. xoolaha ku dhex nool 10,000 oo neef oo geela ariga ku dhex nool iyo lo iyo geel waa inaynu ka saarnaa. waayo caasimad xoole ku nool, xooli baynu la noolnahay. marka waa magaalo miyigii baynu weli ku noolay. waa inay ka baxaan, waa inaynu habaynaa, waa inaynu habaynaa in qofka kasoo dega airportku uu iman karo guriga Cabdiqaadir Imaan oo number leh, oo straight namena leh. waa inaynu sidaa u habaynaa. waa straightski waynu habaysan yihiin. waa inaynu magacyo u samaynaa, waa inaynu guri kasta numberkiisa siinaa. qofka laga soo tilmaamo California waa inuu iman karaa
halku doonayay ee uu socday ama uu xuwaday. Hargeysa oo qurux badan, Hargeysa oo leh landmarks qurux badan sida Naasa Hablood oo kale oo ilaa hadda aanaynu waxba ka qaban oo noqon karta meelaha dalxiiska ah ee loo soo dalxiis tago. waa in dadku markay yimaadaan ay naga geeyaan fariin wanaagsan. Hargeysa oo jaangoysan, qurux badan, habaysan, meelaha dadku degayaan, meelaha baaxmushariga ah, meelaha maxayda industrialka kala wada habaysan. waxaad arkaysaa Hargeysa meel makhaayada oo uu ku xigo ra'iisle oo uu ku xigo maxayda xamaam adduunka kama dhacdo. meeshan wax ka cunayo inuu ra'iisle yaag taagnaado. marka waa inaynu zoning by law waxa la yidhaahdo u samaynaa, waa inaynu regulations u samaynaa, waa inaynu xadeynaa, waa inaynu permissionka marka guriga la doonayo in la dhiso waa in permissionka laga qaataa maxayda dowladda hoose. waa in departmentyadii dowladda hoose aynu dhisnaayo magac ahaan bay u dhisan yihiin aynu empower karaynaa. hadday tahay qaybta logisticada, hadday tahay qaybta HR-ka, hadday tahay qaybta engineeringka, hadday tahay qaybta permission planningka, hadday nacam qaybahoo dhan environmentalka qaybta tahay, hadday dhiraynta tahay, hadday hygiene-kii tahay. hygiene-kii ma hayno. makhaayadaheena dadka shid waa yaabaysa, waxaa lagugu soo shubayaa koobka shaaha isagoo dhinac jaban. waa inuu jiraa departmentkii hygiene-ka oo power leh, oo makhaayadii gelaya, oo dukaankii gelaya, oo dhakhtarkii gelaya, oo report kasoo qoraya, certificate la siinayo. haddii loogu yimaado wixii loogu talagalay isagoo lahayn waa in laga kansan karaya certificate-ka ama penalties la siiya. waa inuu dhisnaa Hargeysa oo caafimaad qabta. waa inuu khashinkii ururinaa, hadduu yahay kii dareera ahaa iyo hadduu yahay kii solidka ahaaba, oo inuu habeynaa. waayo haddaad hadda aragto meelaha khashinka lagu shubo oo idinkiina ardaydii u dalxiis u maxayda tagtaan research waad naxaysaan. waxaynu ku fadhinaa bam. waa inuu electricity systemka habeynaa. waad aragteen oo waayarada dushay wada maraan. roob kasta markuu inoo do-o wuxuu dilaa intaasoo qof ayaa ku dhinta. waa inaynu taana casriyeynaa. Hargeysa oo casriyeysan oo qurux badan ayaanu ballan qaadaynaa 5 sanadood ka bacdi. horta waxaynu u samaynaynaa dowladda hoose ee Hargeysa waa caasimadii. iyadaa maamulaysa wixii caasimadda guud ahaan ay u baahan tahay. laakiin waxay leedahay line ministries bay leedahay. markaynu tusaale ahaan soo qaadano farmasiyada ama dadkaan aqoonta u lahayn waxay kala kaashanaysaa wasaaradda caafimaadka. waa inaan la siin qof aan khibrad lahayn oo guddida khibradda u goonida ee guddida maxayda tacliin caafimaadka sare aanay soo siin, isla markaana member ay ka tahay dowladda hoose. dowladda hoose waa ta bixinaysa leesanka ama shatiga oo qofku ku ganacsanayo. waa la controlayaa, controlkaa lagu hayana waa laga masaxayaa qofka dhibaato u geysta. innaka problemka ugu weynayna haystaa waxa weeyaan sharciyadeenu way wanaagsan yihiin, buugaag bay ku yaalaan, buugaagta ay ku yaalaan baa ay fadhiyaan oo ay fadhidaan. waa in aynu regulationskii aynu empower karaynaa, enforce karaynaa. ciidan bay leedahay dowladda hoose. waa in hygiene-ka iyo caafimaadka iyo wax kasta oo leesana oo shati ah lagu enforce karayaa sidii loogu talagalay. marka ka horeysase waa inaynu qaynuunkii dhiganaa oo regulationskii dowladda hoose ku shaqayn lahayd ee ballaadhnaa ee qayb kasta lahaa waa in la dejiyaa. waxaan filayaa mar baanu bilownay aniyo nin engineer cabdigariin la oran jiray xasan mataan oo reer Canada ahaa. mar baan regulationskaa bilownay oo regulations u sameeyay dowladda hoose markii aan kusoo noqday waddanka 2004. laakiin way suuroobi weyday oo dhaqaale ahaan bay u suuroobi weyday inay daabacdaan. laakiin waan u diyaarinay. waa in regulations jiraan oo marka guri la dhisayo, gurigaa la dhisayo waa in permissionka laga soo qaataa qaybta maxayda dhismaha ee regulationska. waa in lagu dabagalaa. example yar baan siinaya. Hargeysa maanta waa cidhiidhi, baabuurtii baa ku badatay. meel la dhigto maxayda baabuurtii ma laha, parking ma laha. guri cusub baa la dhisaya oo fooqaa la dhisaya. fooqii laguma talagelayo in parking loo sameeyo. waxaa laga yaabaa fooqa waxaa loogu talagalay inay 300 ama 200 ama 100 reer ay galaan. 100kaa reer ee galayaa waxa qolo kasta maanta waxay wadataa baabuur. reer kasta baabuur buu wataa ama labadii reerba baabuur ha ka dhexeeyo. waa inaynu ugu talagalnaa parkingkii la dhigayay
waa inaan la siin permissionka ilaa uu isagu baarkinkii samaysto ama godka ha samaysto baarkinka hoose ama mid sare ha samaysto ama mid barxad hore ah. marka waxaanu adkayn doonaa inaan regulationskaanu dejino la dabagalo la enforce gareeyo. taas waa taa. markaan joogay commissionka doorashooyinka qaranka waxaanu maxayday 6 xubnood ee tartamayay 6 xubnoodba sharciyan waxaa laga dhigaa dhaqaalihiisa. muxuu dhaqaalo haystaa, intee guri buu leeyahay, intee baabuur buu leeyahay, si berri ka maalin loogu xisaabtamo. markuu ka tegayo imise baabuur buu leeyahay, imise guri baa u saayiday, oo markaa la idhahdo xakaad ka keentay way mushaar bad qaadata. marka taa laftigeeda inaan dowladda hoose lagu soo maxayday dejiyo oo 17 xubnoodba la baadho haynta iyo hantida ay leeyihiin oo la dhigo. waayo waxaan dhignay marka 6 xubnood madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen 3 xisbi 6 xubnood bay ahaayeen. 6 xubnood documentiskoodii oo dhan oo ballaaran waxaanu dhignay maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Somaliland. madaxweynuhu maalintuu ka tegayo sharci waxaa loogu leeyahay in la baadho oo la yidhahdo xaggaad hantidan ka keentay. marka waa intaas la wada maraa oo mas-uul kasta oo imanaya aanu v8 sida ilankaasi sheegaya aanu magaalada siiga ku qasine ee la baadho wuxuu la yimi markuu ka tegayay wuxuu haysto. taas waa taa. engineerinka kolley anigu iyo de maxamuudi waxaan u banaan doonaa qaybta practicalka waa waxyaabahan aan uga hadlayo le practical. waxaan waa in la qabtaa, waxaan waa in la qabtaa. anigu waxaan u banaan doonaa qaybta practicalka in aynu experiencekayga anigoo maxayda isticmaalaya waa in aynu u sameynaa Hargeysa meel qurux badan oo practically lagu noolaan karo. oo inanta Somalilanderiska ee ilmo yar dhashay ay baska ku raacdo inay bush chairkeedii qaadato, kala degto, ay pavement marto, shoppingkii soo samaysato, ku soo noqoto. bismillaahi raxmaani raxiim. maxaad kaga duwan tahay? waxaan kaga duwanahay doorashadii dhaweetay aanu qabanay. waxaanu ku qabanay annagoo tiim ah. dowladda hoosena waa inay tiim ku shaqaysaa. guushii aanu gaadhnay aanu 4 milyan iyo 500 kun oo qof aan ku kala saarnay votingkoodii waxay ahayd teamwork iyo kalsooni iyo sirtoon ilaalino, sirta hay'adda oo la ilaaliyo iyo regulationska ruleska yaallo la raaco. intaasaan ku guuleysanay. intaa haddii dowladda hoose moodalka aanu qaadano waa moodal inoo hirgelaya. kaasaan kaga duwanaanaya anugu saaxiibadayda kale. haddii ilaahay ii idmo qorshahayga ugu horeeya waxa weeyaan inaynu roobka da'a waxyeelo weyn buu gaadhsiiyaa oo drainage systemkii ama water service systemkeeni waa baaba'ay oo waa la wada dhistay. bal aniga qorshahayga ugu horeeya ee aan saaxiibaday la wadaagi doonaa waxa weeyaan inaanu 6 bilood ugu horeeya drainage system saxa oo biyaha saara oo roobku markuu dooxa geeya. weliba Hargeysa waxay ku wanaagsan tahay waa 2 qaybood, waa 2 buurood iyo dooxii oo ah zero level. waxay ku habboon tahay, way fudud tahay, dhaqaale badanna ku bixi maayo. qorshaha ugu horeeya aniga maskaxdeyda ku jira waa kaa. haddii biyaha la saaro jidkiina wuu hagaagayaa. jidka ama wadooyinka iyo biyuhu waa isu cadow. biyuhu hadday fadhiistaan jidka ay dul fadhiistaan wuu maaxaa, base course-ka baabaa, wuu maxay dilaacyuu keenaa, badhooluu keenaa. hadduu intaa keenana jidkaas wuu khasaaray hadduu xataa sanad jiro. marka jid kastoonu dhisnaa waa tacab khasaar. marka hore biyahan aniga priority number 1 waa biyaha laga saaro Hargeysa. sidee baa looga saarayaa? drainage system open ama mid xidhan baynu sameynaa. xaggee laga keenayaa dhagaxeedii? Hargeysa waxaad aragteen 500 ilaa 700 oo kun oo guri weeyaan Hargeysa. guri kasta waxaa hor yaalla 3 load ama 4 load oo dhagaxa. garan mayno waxa loo sameynayo. 4 load ama 5 load markaan ku dhufto 700 oo kun oo guri. intaasoo 100 oo load oo kun oo dhagaxaan helaya kaasaa ku dhisaya. oo mana ogolaan doono in guri la hor dhigo dhagax. waa inuu gurigu
hortiisu nadiif noqotaa geeda ka baxaan taana annakaa idiin manage garayn doonaa dhagax halkaasaynu ka geenaynaa priority number 2gaygu wuxuu noqon doonaa waddooyin qurux badan oo jaan goosan oo leh wixii waddo international ay leedahay kayga saddexaad waxa weeyaan lightingkii oo xadhkaha sida maxamuud sheegayo xadhkaha hoosta la mariyo system lighting oo qurux badanna loo sameeyo solar baa imaka jaban oo adduunka oo dhan isticmaalaan inaguna 365 maalmoodba cadceed baynu helnaa inaynu solar u wada bedelano waxeena solar ka dhigano kana jaban kana faa'iido badan kana iftiin badan kana maxayday pollutionkii xataa waan pollutionkii ka fikirnaa xaggii pollutionkana environmentally safe ah marka aniga qorshahaygu sidaas uu kala horeeyaa infrastructure-kaynu ka horeysiinaynaa dadka ku ganacsada laamiyada waxaynu ugu talagalnay laamiga markaynu ka baxno inaynu helno meel dadku maraan footpathkii ama marshibiyadigaa la marayo waa inaan lagu ganacsan qofkan miskiinkaa maxaynu yeelaynaa waa inaan qorshe u sameynaa intaan la rabin qof la cadibayaa ma jirayo qof la khasbayaa ma jirayo qof kasta waa in loo sameeyaa halku dhaqaale ka heli lahaa ilaa loo sameeyo oo loo qorsheeyo oo loo dhiso lama rari karo lamana rarayo markaynu waxaa u sameyno ayaynu raraynaa magaaladeeni magaalo qurux badan oo la tartanta maxayday magaalooyinka inoo dhow sida Jabuuti ama Addis Ababa inay noqdaan